waxaa deegaanka Koronqoojis ee u dhexeeya tuulooyinka Hadley iyo Buso oo ah deegaan laga qodo dahabka kana tirsan degmada Gabiley ee Somaliland ku geeriyooday 2 qof oo kamid ah dadkii ka shaqeynayay godadkaas sida uu BBC-da u xaqiijiyay maayirka degmada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi wuxuu u waramay wariye Maxamed Baashi soo ka waramay xaalka dadkaas iyo sidii wax u dhaceen walaal deegaankaasi waa deegaan u dhexeeya eriyada tuulada Hadley iyo Bus waxay ka mid tahay meelaha hadda ay dadku dahabka ka qotaan marka 2 muwaadin oo god uu ku dumay baa jiray 3:40 daqiiqo shalay 5 qof baa godka ka shaqeynayay 3 waqtiga uu dumi doono banaanka ka joogay labadana gudaha Allah u naxariistay labada marxuum ee ku dumay baa markaa gudaha ku jiray markaa waa iska accident wax ku talagal ma ahayn godkiiba si aan ku talagal ahayn bay ugu soo dumay waxaana ilaa 10 marar meelahaas baa xalay lagu guuleystay in midkoodii laga soo saaro labada muwaadin Gabiley baana la keenay ilaa 12 iyo badhkii talaagada meydka lagu xareeyay maadaama dee accident tahay niman shaqaalaha oo cid u shaqeynaya bay ahaayeen marka arrintaas saas u dhacday marka maayir ma la og yahay waxa sababay in godka uu dumo walaal kulli baadhitaankii baa socda laakiin wuxuun baanu filanaa maadaama ilaa 12 mitir baa godka hoos loo qoday marka intii ay dhaafeen un baa ku soo duntay baadhitaanka lagama gun gaadhin laakiin wuxuun bay u eg tahay arrin iska qadaro wax dibadda kaga yimid oo dee sababayna ma jiro marka idinku maamulkii Gabiley ma tagteen goobta shilku ka dhacay waxaanu u dirnay 4 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka iyo saldhigga booliska iyo qaybta oo markii shilku dhacay baa ka howlgalay marka maamulka ka howlgalay gurmadka qayb ka ahaa imikana hawshii gacanta lagu hayaa maamul ahaan marka goormay bilaabatay in dahab deegaankaas laga qodo walaal hadda way socotaa ilaa waxaan filayaa 2 sano u dambeeyayba way dhaqdhaqaaqyada noocaasi way socdaan waana hawl ka socota deegaanada marka ma dad iska xoogsi tagay oo muruqmaala ayaa iska qodanaya godadka oo dahab ka raadinaya mise shirkado ayaa hawshan wada labaduba walaal way isku jiraan dad iska xoogsanaya weliba dad u badan dadkii beeraha iyo deegaanada lahaa iyo dad shirkadaha oo wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland oo golaash ka haysta labaduba way jiraan marka deegaankaas waa deegaan nooceeya waa deegaanka waqooyiga degmada Gabiley marka waa dhul buuro u badan oo dadkuna yihiin dad buuraha iskaga nool oo xoolo dhaqatay beeraley isugu jira laakiin waa deegaanka waqooyiga buuruhu ku badan yihiin maxaa xiga oo tallaabo oo la qaadaya marka haddii labadii marxuun ay talaagad ku jiraan meydkoodii maxaa xigaya hadda walaal waxa socota baadhitaankana dee maamul ahaan gacantaanu ku haynaa hay'adaha khuseysay baa gacanta ku haya sidoo kale dee qoysaskii labada marxuum ka dhinteen iyo dadkii ay u shaqeynayeen baa iyaguna dee wada hadallo u socdaan inay ka heshiiyaan khasaaruhu siduu u dhacay iyo dee wixii muxuu ahaayey ay ku heshiin lahaayeen runtii maadaama deegaanku uu hoos tago degmada aad adigu mas-uulka ka tahay hadda 2 qof ayaa dhintay laakiin godadkii weli laga qodayay dahabka deegaanadii hawshoodii way ka socotaa maxaad is leedahay in dadkuna ay badbaado ku helaan ayay tahay in la sameeyo ama dawladda dhexe ha noqoto ama se shirkadaha loo shaqeynaya ha noqotee arrintaa walaal waxaa howlgalkeeda insha Allah marka horena gacantaanu ku haynay iminkana waanu sii dardargelineynaa waxay u baahan tahay in shaqadii ay dadku wadeenna ay jirto safetigii iyo muxuu ahaa dadkan badbaadadoodiina ay meesha taalo labadiiba la iswaafajiyo marka hadday tahay wasaaradda shaqada leh iyo hadday tahay anagoo dee maamulkii deegaanka ka mas-uulka ahaa labadayada iyo hay-adaha kale khusaysaaba hawshaa howlgal degdega baanu ka sameynaa insha allahu tacaala